magacaygu waa Maxamed Nuur Xuseen Sagal waxaan ahay xubin dhalinyaro oo reer Faqo Cumar oo mataliya degmada Raaso iyo dhalinyarada ku nool marka waxaan halkan hambalyo aan la soo koobi karin aan uga dirayaa hay'adaha maxaa la yiraahdaa meediyaha warbaahinta idaacadahan ma garanaysaa oo hadla dadka dhibaataysan ee ma garanaysaa waxyaabaha ay ka hadlayaan soo daaya ee warbaahinta ma garanaysaa dadka dhibaataysan ee xaqdarrada lagu hayo meel walba caalamka gaarsiiya aad baan halkan bogaadin uga diraynaa aad iyo aadna waan u salaamayaa waxa kale iyaga oo cambaareenaya TV-yadan ma garanaysaa inta ma garanaysaa dadka la afduubayo iyo dadkan ma garanaysaa dadkan cadawga ma garanaysaa oo ah taageerada intay guri ku xidhaan warkii odayaal ma garanaysaa guri lagu xiray oo ummadan metelin oo nin reerkooda hor istaag kara oo jirin TV-yadan waxaan cambaareenaynaa inta ma garanaysaa ay guri ku xidhaan oo ay war ka qaateen ka soo daayay TV-ga maxaa la yiraahdaa SRTV hadday sharci tahay iyo hadday ma garanaysaa nidaam kala tahayba waxaan dawladda Mustafa aan ku cambaareenaynaa madaxweyne Mustafa in arrintan geediga ah uu go'aanka u qaatay inayna ahayn arrin sax ah waa arrinta dib uga noqdo waayo hadduu madaxweyne Mustafa maanta yiri ma garanaysaa deegaamada cusub ma jirto de kuwii hore jireen miyuu baabiinaya haddii maanta ma garanaysaa madaxweyne Mustafa ka horreeyay wixii uu deegaamay madaxweyne Mustafa hadduu baabiiyo madaxweyne Mustafa ma garanaysaa anna bari markaan tago xilka inaan taga laga yaabaa qof waxaan u qalmee anna bari markaan tago madaxweyne Mustafa wixii ma garanaysaa uu sharci galiya haddaan baabiiyo de meesha waa xafiis dawladeed nidaamkii dawladeed shacabku maxay ka fahmayaan markaa waxa loo arkayaa inuu yahay nin ma garanaysaa in qof walba yiraahdo iska daa anna baridan baabiinaya marka de sharciga waan wada naqaanaa imika dhulka ma garanaysaa haddii wuxuu arrin dhul yahay qof meel lagu deegaameeyay baajid ku baxayo konton kun oo arday ay meel wax ku baranayso waan rarayaa reer kale waan soo dejinayaa de ma garanaysaa arrintaasi arrin ma garanaysaa qof xitaa wax bartay uu ku hadla ma arrinkaasi waxa weeyaan imika hadduu ma garanaysaa madaxweyne Mustafa uu yiraahdo dhagax buur baan rarayaayo reer kale soo dejinayaa arrintaan bay la mid tahay laakiin maanta qofka media ka maqla waxa laga yaabaa inuu arrintaan ma garanaysaa uu arko ciyaar iyo wax kale marka waxa weeyaan go'aankan geediga wax aan guuraynaa ma jiro reer Faqo Cumar uu ka midaysan yahay waxba odayaal guri inta lagu xiray ma garanaysaa oo deegaanka tageen annaga odayaasha hadeen mateleen waxa noo qalmin bay noo soo qaadeen shacabkii matelayeen wuu diiday madaxweyne Mustafa iyo ma garanaysaa xukuumadda deegaanka ka tirsanayna sida ku ogaato dawladda anagu waa dawladdanadii ma diidanin laakiin wixii sharci darra intuu anaga noo yimaado hor yimaado hogaanka nabadgelyada madaxweyne Mustafa hanagu qanciyo hanaga dhaadhiciyada shacabkiisa baa nahay laakiin ma garanaysaa intuu ka haysto shakhsiyaad anaga ma garanaysaa aan nabadgelin uu guriga ku dhawr ka qaato in warbaahinta laga istay caalamka uu gaarsiiyo arrintaasi waa arrin aan muhiim ahayn marka waxaan halkan ma garanaysaa ka tagay ma garanaysaa marka hore maadaama ka tagay waxaan aad iyo aad uga salaamayaa anoo raalli ka ilooshaan ilaaway dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka meel walba ka joogta aad baan u salaamayaa gaar ahaan ummadda reer Faqo Cumar ma garanaysaa qurba joogta leh dhalinyarada leh oqaasha leh culimadiin kale aad baan u salaamayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad noo mahadsantiin